Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaad kusoo dhawaataan channelka Somali Share Education Network. fadlan haddaad tahay qof nagu cusub waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saartid sidoo kale gambaleelka aad furtid si ay kusoo gaaraan muuqaaladan soo dhigay annaga hilmaamin inaad muuqaalkana like noo saarto like-tiina waa noo muhiim haddii aan u guda galno videogeena maanta waxaan ku qaadanaynaa qaabka aan Gmail u samaysan lahayn طبعا Gmail samayntiisa aad iyo aad ayuu u fudud yahay adigoo mobilkaaga isticmaalana waa samayn kartaa sidoo kale laptopkaaga aad isticmaalaysan waa ku samayn kartaa ama computerkaaga haddaba maanta waxaan isticmaalaynaa waa computer marka waxaan u baahannahay qaabka aan Gmail ku samaysan lahayn hadda saad arkaysid ani Gmail uu ii furan yahay marka waxaan rabaa inaan mid kale aan sameeyo waxaan samayn karnaa inaan Gmailka aan tagno kadibna lookout aan dhaho ama halkan aan riixo kadib qaybtan hoose aan aado waxaan leeyahay add account balse haddii aadan Gmail oo ka furnayn meeshaan waxba kuma arki doontid almuhim add markaan dhahno sidoo kale use another account ayaan halkan ka dooranaa because wuxuu isiyay list ku qoran inta Gmail aan ku furay marka intooda ma rabi waxaan rabaa mid cusub inaan sameeyo marka waxaan leenahay use another account markaan dhahno ilaa hadda wuxuu taagan yahay sign in qaybta markii aan u baahannahay in aan Gmailkana aan furno haddii Gmail-dan oosan kuu furnayn automatically Google-ka markaad kusoo dhiftid kadibna dhankaas sign aad soo dooratid halkan waxaad ka arkaysaa in qaabkan ku imaana yacni wadadii dheer hadda aan soo maray arkaysid waxaad arkaysaa kaliya sidaan sign markaad soo dhahdid halkan ayaan waxaad ka dooranaysaa create account markaad dhahdid wuxuu leeyahay 3 siyaabo ayaa Gmail loo samaystaa yani waxayna yihiin in aad yani Gmail adiga laf ahaantaada u samaysatid misana midka labaad waa mid adiga carruurtaada inaad rabtid inaad u samaysid iyo mid aad ugu talgashay goob ganacsi marka haddeertaan maadaama aniga for myself aan u isticmaalayno oo email aniga aan u baahannahay marka midka ugu koreeyaan riixinaa okay markaan riixno wuxuu ku leeyahay ugu horreyn magacaaga hore ama first name halkan geli maha aan leenahay aan dhameystiro Muhammad ayaan leeyahay kadibna last name geli ayuu leeyahay last name-kayga waa Sayid Cali طبعا magaca ugu horeeya waa ku qoranay last name waa ku qoranay kadib waxaa leedahay next markaad dhahdid wuxuu na weydiinaa waqtigaan dhashanay marka waxaan gelinaynaa taariikhdan dhashanay October markii aad da'da ama waqtigaa dhashatay halkaas aad kusoo qortid qaybta hoose ayaad waxaa ka dooranaysaa gender waxaa tahay okay markaan dooranay kadibna next ayaan leenahay next markaan dhahno wuxuu ku siinayaa yani tusaalo ama Gmail oo magaca aad gelisay yani available-ka ah marka wuxuu ku leeyahay in aad qaadatid Muhammad Sayid Cali 229 ama wuxuu leeyahay waxaad doorataa M Sayid Cali 3@gmail.com ama wuxuu ku leeyahay create your own Gmail ama Gmail adiga khaas ku ah inaad dooratid labadan option haddaad dooratid khalaas yani Gmail-kaaga yani sidaas uu ku samaysmaa balse haddaad rabtid inaad mid adiga ku khaas aad dooratidna halkan ayaad dooranaysaa marka halkan aan imaano magacaas kuma qancin waxaan leenahay Muhammad Sayid Cali waxaan leeyahay midkaan ii fiiri hadduu jiro iyo haddii kale next aan leeyahay wuxuu leeyahay waa la qaatay waxaan leenahay Sayid Cali okay waxaan leenahay 30 ama doodkan aan ka saaro kadibna mar labaad aan barweeyo next ayaan leeyahay still wuxuu leeyahay waa la qaatay 30 aan dhaho
okay wuxuu qaatay yani maxamed oo dhibac u dhexeynay sayid cali kadibna soddon intaasoo qaatay. Passport wuxuu leeyahay u sameyso passport aan iska sameysano. waxaan leenahay passportkeena in ma muujinayno. Passwordka kor aan kusoo qornay waxaan laga doonaynaa hoosna aan ku qorno. markaa ku qortidna kadibna waxaad leedahay next ayaan leenahay. wuxuu ku leeyahay lacalla hadduu gmailkan kaa lumo in oo for example oo securityka passwordkiisa ay hilmaantid, ma jeceshahay email kale oo hoos tagi doono oo hadhowdii haddaad u baahatid inaad gmailkaada aad furtid, balse ani daruuri ma aha. adna waxaa dhici karta maadaama inuusan kuusoo bandhiginbo, waxaan leeyahay escape uma baahni. escape markaan dhahdid sidoo kale wuxuu iga codsanayaa maadaama gmailkan usoo diiday haddana haddii aan u baahanahay inaan number aan halkan geliyo. dabcan meesha aan joogno waa German, so that's why oo number Germany ah ama calanka German halkan ayuu iisoo qoray. adi laakiin wuxuu kusoo bandhigi doonaa waddankaad joogtid calankiisa. sidoo kale numberkan inaan geliyo ma rabo because muhiim ii ma ahan. escape ayaan leeyahay. okay wuxuu leeyahay in ogsoonow gmailkaaga waa sidaan, magacaagasna waa maxamed sayid cali. next ayaan leeyahay. next markaan dhaho in kadib waxaan leeyahay accept aan iska leenahay. accept markaan dhahno sidoo kale hoos aan usii aadno kadib waxaan leenahay confirm. halkaan hoos aan kasii aadno okay gmailkeena waa lagu guuleystay wuuna u sameysan yahay. hadeertaanna wuxuu diyaar u yahay inaan isticmaalno. hadeertaan gmailkeena saa arkaysid waan sameynay, waan ku guuleysanay. in muuqaalkeena halkan uu ku eg yahay. waadna ku mahadsantahay daawashadaada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.